haddii aad tahay qof naxdin badan ama qof waayeel ah fiidiyogan ku diran yahay fadlan ha fiirsan. Sheekadan waxay ku dhacday nin magaciisa la yiraahdo Salmaan. Sheekadan waxay u dhacaysaa sida tan. Salmaan iyo xaaskiisa waxay u soo baxeen dalxiis waxayna imaadeen hotelka Hilton. Salmaan iyo xaaskiisa waxay doonayeen in Hilton hotelkaas ay waqti ku qaataan inta ay fasax leeyihiin. Salmaan iyo xaaskiisa hotelkii si wanaagsan ay ku farxaan ayaa loogu soo dhaweeyay. Shaqaalihi ayaana ku soo dhaweeyay, laakiin Salmaan wuxuu ka shaqeeyay shaqaalayaasha shaqaale ka mid ah sababtoo ah meel kastoo aado uu dabaraacay markastana iyaga ayuu indhaha ku hayay. Run ahaantii Salmaan arrinkaas wuu ka xanaaqsanaa, laakiin ma dareensiiyeen in uu ku xun yahay. Maalinkii xigay Salmaan wuxuu soo baxay banaanka si uu baraf u soo qaato. Asigoo baraf shoonaya ayaa wuxuu arkay nin hotelka shaqaale ka ah kaasoo markasta Salmaan daba dhigtay. Salmaan si xun ayuu u soo fiirinayay ninkaas, indhihiisana aad ayay guduud u ahaayeen. Salmaan xoogaa cabsi ayaa gashay. Salmaan wuxuu diidanaa in la dareemo in uu baqayo, laakiin Salmaan laabka ayuu ka leexday kadibna orod ayuu istaabtay. Si degdeg ah ayuu wuxuu ku soo galay qolkiisa wuxuuna xirtay albaabada dhammaan wuuna iska tuurayay. Salmaan arrinka oo markasta uu la yaabanaa uuna ka fikirayay wuxuu ahaa waxa uu ninkan ka hadlayay iyo sababta uu u daba dhigtay. Kadib Salmaan iyo xaaskiisa waxay u soo baxeen banaanka si ay u soo casheeyaan. Markii ay soo casheeyeen waxay ku soo laabteen hotelka. Salmaan iyo xaaskiisana way iska jiifteen. Salmaan asigoo hurdaya xoogaa kadib ayaa wuxuu maqlay shanqar ka soo yeeraysa dhinaca albaabka. Kadib Salmaan iyo xaaskiisa way soo kaceen. Salmaan isla markiina wuxuu dareemay in qofkan uu yahay hotelka shaqaale u shaqeeya sababtoo ah albaabka wuxuu ku soo furay kaarka shaqaalayaasha. Nasiib wanaag Salmaan hotelka markii uu seexanayay wuxuu iska xiray qaybta kore ee sekretariyada. Salmaan wuu soo orday wuxuu ka fiiriyay babaqa qofka albaabka soo furay, wuxuuna ogaaday in uu yahay ninkii markasta daba socon jiray oo daba dhigtay. Salmaan aad ayuu u baqay wuxuuna damcay in uu albaabka furo, laakiin Salmaan xaaskiisa ayaa waxay dhahday albaabka ha furin. Sidoo kale Salmaan asiga xataa wuu baqayay wuxuuna doonayay qof kaliya oo dhahdo albaabka ha furin. Asigana wuu baqay albaabkiina ma furin. Subaxii markii la gaaray hotelkii way iskaga tageen Salmaan iyo xaaskiisa sababtoo ah waxay ka shakiyeen ninkan oo qofkii hotelka imaadaba iska daba dhiganaya. Fadlan ha hilmaamin inaad videoga like gareyso. 내가 포기하고 싶을 때도 나는 왜